labada group heshiiyay asxaaxeen kaasa heshiis wixii loo keenay berigii hore annagu ansixinay si kastaba aanu ansixinay waa la ogaasay lagu ansixiyay wuxuu waraaq aan saxiixba lahayn waraaq saxiixan oo lagu heshiiyay oo shirkadda DP World gashay iyo Ethiopia iyo Somaliland ay gashay oo saxiix ku yaalo taas ayaa heshiis la yiraahdo golaha taas uu doonaya taas laga wareegaya madmadow baa ku jira waxaan garanayn baa ku jira wax la qarinayaa ku jira waxaan dadka iyo golaha in la tuso aan raali lagayn baa ku jira taas dekadu taaway tan ay leeyihiin shirkadda shirkadda maalgashi Somaliland waxa isqaban la shirkad iyo dawladda habkee weeye maxaynu ku macnaynaa oo shirkad baa leeyahay ma shirkadda dawlad noqon kartaa ma dawladii baa baabado shirkadda dawladii baa shirkad noqotay waxa weeye dadka aqalgooda lagu ma ciyaaro aqal baynu leenahay dad baynu nahay bani aadam baynu nahay dawladda leh waxba lagu qarinayaa meesha waxba lagu qarinayaa madmadow baa ku jira madmadow buuxa ku jira dadweynaha lagu dhacaya arinta iyada ah meesha ma taalo in dadku ogaada meesha inaan wanaag lagu haynin xumo lagu hayo waxa ka hadlaya freezone macnaheedu waa maxay ma waxa laga wadaa duty free zone miya macni kelmaddu duty free zone weeyaan ma aha free zone annaku garan mayno ilaa sharciga la keeno oo dadka la soo hordhigo wax alla wax meesha ku yaala hadaan dadkii sharciga sameeyanahay annaku dadweynaha waxaan u sheegnaa waxba inaan meesha ku haynin waxba inaan jirin in madmadow jiro in qarsoodi jiraan waxaan ku soo gabagabaynayaa amar dawladeed weeye amar baarlamaan haddii la ogol yahay inuu baarlamaan yahay la soo doortay amar baarlamaan weeye wax heshiisa oo la galay oo rasmiya oo cidda gashay wada saxiixday haddaan la keenin inaanu sharcigaasi jirin oo aanu meel mar ahayn oo aan lagu dhaqmi karin waa kaas ugu yaalla amarna waxa weeye in la keeno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي قولها على الهرفة إنه يهي قوله شرع الدجنة قرقة عدة كادون يسا الشرع كله كان نايهين شرع الدجياشي وقرقة لها هرادو شيكتي إنه يهي حيركني memorandum of understanding قبيه يهي مركز العسحيانا أظهر كني دون تقولها والله قاربا قوله شرع كويدينيا هذيقو بدي قادو واحد حكومة دي هراء iyo xukuumadan ba labadaba heshiiska DP World iyo Somaliland sida daraadeed waayo cid aad isaga riixaysaa waayo inay keento xeerkaasi ama heshiiskaasi golaha inay hor keento cid aad isaga riixaysaa waayo waa su'aal markuu arkay xeer lambar 2 qaybtiisa koobaad ee maamulka hantida qaranka qodobka koobaad oo qeexaya in dhammaan dekedaha iyo garoomada dayuuradaha ha ahaadeen kuwa rayidka ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran sidoo kale qodobka saddexaad isla xeerkan oo qeexaya inaysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan markuu arkay qodobka 69aad faqradda koobaad oo qeexaya in golaha shacabku awood u leeyahay curinta sharci cusub oo aan ka ahayn miisaaniyadda sanadlaha asagoo ku kulansan kalfadhiga saddexaad kulankiisa koobaad ee 12 Maarso 2018 wuxuu ansixiyay xeerkan qodobka koobaad heshiis caalami ah waxa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u gali kara oo kali ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ayadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay'adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka labaad faqradda koobaad heshiis kasta oo lala galo dawlad ama hay'ad kale oo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aan sharciyad lahayn labo heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World DP World lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan
faqradda saddexaad shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa saadaradeed shirkaddan laga mamnuucay dalka qodobka saddexaad faqradda koobaad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dawladda isutaga Imaaraadka Carabta UAE kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka Soomaaliya iyo xaqa shacbiga Soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobonnimadiisa iyo midnimada geyigooda faqradda labaad waxaa kaloo la farayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu si degdeg ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed u herkoono tallaabooyinka iyo hawlgallada xukuumadda ay ku ilaalinayso sarreynta dastuurka iyo badbaadinta midnimada geyiga Soomaaliyeed qodobka afaraad baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhammaan shacbiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka